afar qof oo iyagu laga yaabo in dheer ka seexdaan Yurub runtii anagu markaan duurka ku jirnay oo nala dagaalantay anaga oo Itoobiya la wada dagaalamino ka soo wada horjeedna ma sha Allah rukeeday waa taariikh ka soo bilaabanaysa hogaaminta halgan jihaadi ah oo deegaankii dadkiisaba loogu xusul duubaya inuu ka dhaqan galo xukunka islaamku balse isku dhalan rogaya taageerayaal iyo hoos joogayaal isla taliskii ay la halgamayeen iyo maamulkii deegaanka u yaqaaneen gacan yaraha gumaystaha mar kalena waa isla hal shakhsi oo jawiye kala duwan isdiidanna iyo xaalado kala duwan ku bedelaya aragtidiisa isla hal qolo isla hal taariikh iyo isla deegaankii uu xilliye isbedelay midba si u dhigayay wixii uu kolkii uu liitay u riyaaqay liidaya kolkan uu wacnaaday ciddii uu shalay ku gafay iyadoo maqan maantana ka dhiganaya saaxiibkiisa danta xilliyada qaarna goobjoog u ahaa madallo loogu gafayey sharafka iyo karaamada qaarkood beelaha Soomaaliyeed ee deegaanka shakhsiyadda aynu ka hadlaynaa waa Sheekh Ibraahim Maxamed Xuseen Ibraahim Dheere gudoomiyaha kaligii ku ah xisbiga FEB ee deegaanka Soomaalida kolkan kama aynu sheekaynayna taariikhdiisa halgan midda siyaasiga ah iyo noloshiisa midna waxaynu soo kor istaagaynaa marxalado dhowr ah iyo weedha laga diiwaangeliyay sheekha xilligii uu nabadda qaatay ururkiisii UWSLF lana shaqeeyay maamulkii deegaanka ee xilligaas marxaladahan diiwaanka galay oo dhammaantood liddi ku ah afkaar kasta mabaadii kasta iyo doodaha uu xilligan qabo gudoomiyuhu muuqani waa sanadkii 2012 kadib 2 sano kolkii ay nabadda qaadatay jabhaddii uu hogaaminayay sheekhu xilligan waxa uu sheekhu la dhacsanaa nidaamkii maamul ee Cabdi Maxamuud Cumar waxa uu si weyn ugu riyaaqsanaa horumar ka muuqday magaalada Jigjiga oo uu sheegayo in uu qaadan la yahay muddada yar ee uu ku hirgalay haday tahay dhan wadooyin haday tahay dhinac beero haday tahay dhinac iskuulo yani dhinacaad fiirisaba runtii horumar guud oo gobolka waxa ka socda waliba si degdeg ah u socda magaalada Jigjiga runtii maalintii aan nimid iyo maanta markaan 2-3 bilood ka maqnaadaba waxaan dareemaa magaalo aan garanayn hadda waxaan malaynayaa bishii afraad baan waddanka dibadiisa u baxay sanadkan 2012 hadda waxaan soo laabtay bishii 10aad dhaxdeeda muddadaas aan malaynayaa inay 6 bilood tahay isbeddelka Jigjiga ka dhacay magaaladan ka tagayba ma aha runtii waxaad arkaysaa labadeeda daafood laami iyo wada is haysta oo walibana koonayowgeeda dhexdeeda doog lagu beeray bridgeyo runtii waxyaabo aan aad ula yaabay wadajir aynu milicsanay sanadka 2012 ee uu gudoomiyuhu ku sheegayo horumarka iyo baraaraha waa xilliyadii ugu xumaa xaaladaha ammaanka gabadfalada shacabka iyo tacadiyada ee boqolaalka birmigeydada barida ay buuxdhaafiyeen xabsiyada kumanaanka ubadka ay agoomoobeen hanfiga bareemkuna leefay dubka shacabka DDS waa bilowga sanadadii ay deegaan ka curatay ciqaabtii carjuuqdhe ee ay qorantay taariikhdii madoobe shacabkeenu la kulmeen tacadiga ilaa hadda loo maarlaayahay xuquuqdiisa saaxiibka ugu muhiimsan danta siyaasadeed ee xilligan garabsanaya gudoomiyuhu waa jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ee Jawxo oo sanado ka hor shaacisay halgankii qoriga iyo dhiiga in ay u bedelayso halgan qalin iyo siyaasi ah xilligan ka mid ah axsaabta mucaaradka ee deegaanka isla sanadkii 2012 taariikhdu waxay diiwaan gelisay inuu Sheekh Ibraahim Dheere dabka isku raaciyo ololkii lagu la dagaalamay jabhadda sidoo kalena horboodo barnaamijyo lagu bahdilayay jabhadda xilligaas shirkan wuxuu focus ka saaray ama uu si toos ah u tilmaamay cadawgii dhabta ahaa ee ummadda oo ahaa dagaalka marin habaabinta ah ee aan macnaha hadda uu sameynaya aan jirin ee dadka ku socda maanta waxaad moodaa shacabkii iyo dawladdiiba inay u diyaar garoobeen isku tashi wax wada qabsi iyo inaga maxaa inoo dan ah afar qof oo iyagu laga yaabo in guryo dheer ka seexdaan Yurub runtii anagu markaan duurka ku jirnay oo nala dagaalantay anaga oo Itoobiya la wada dagaalamino ka soo wada horjeedna iyo ilaa 200 oo qof sabab la'aan nagu kala dhimatay marka anagu waan ogeyn in aanu dagaalkoodu ku wajahnayn cid kale ee shacabka iyo jabhadaha la dagaalamaya laftooda dawladda ay iyagu ku wajahnaayeen
si loo sii gubo ambalaasta iyo wadooyinka iyo iskuullada shacabka gudaha waxaan leeyahay wax dibad idinka jira ma jiro aanan ogaano in ay yihiin cadowga dhabta ah ee sida gaajada iyo caafimaad darrada aan ula dagaalamayno u mudan in loola dagaalamo ما شاء الله ركاب هاي أوبا تهديكوا غادين كوفلو تمام غور مالو labadii kun iyo shantii maalmo ciidanka midka dagaalka mid baa lagu baxay hadda maanta lagu soo daayay maxaa dareemaysaa wallahi farxad aad weyn baan dareemay inaan farxad awgeed waan baarkay hadda hooyada iyo walaasha iyo meesha ku wada ooyaan ku soo taan maxaa dhihi lahayd marka adigu maanta yani dareenkaaga maxaa dareemaysaa wallahi aad baan horta farxad dareemaya laakiin waxaan dhihi lahaa ururkan bahdilkooda ninka mustaqbalkan ay ku ciyaaray dadka hadda weli siyaamisanay gobolada aan magaalooyinka jooga ururkashina iskaga hadhan dhinaado mar kalena sooyaalkii taariikheed ee sanadihii tagay waxa uu marag ka noqday oo uu diiwaan galiyay inuu goobjoog ahaado gudoomiye Ibraahim Dheere mowqif kale oo lagu xasuusto ceebayn iyo suurad xumeyn qaarkood qabaa'ilka sharfoon ee deegaankeena madasha uu fadhiyaana waa shirkii caanka baxay ee loogu magac daray ariga la kufsadaa shirkaas oo dhagaxumadii laga faafiyay ay gaadhayn deegaanada dariskeenna ahi diidaan xoolaha deegaankeena ee xilligaasi loo dhoofin lahaa carabaha idinku dumar baad ka hadlaysaan dad la dilayay xayawaan inuu waxyeello u geystay kufsin u geystay iyana loo soo gudbiyay anu waxaan ka mid ah guddigii loo maray halka ee leeydi soo eega halkii baanu tagnaa noo 3 xubnood ah oo naloo diray reerkii baanu la kulanay dib ku qabsaday marka reerkii waxay dhan waxna gaaray mala waxba ii sheegi mayno ana si hoos u warsaday islaantii xoolaheeda dib ku gaareen waana inta la kaftameen meel fadhiisii waxaan ku dhaano kaliya ii sheeg cidna u sheegi maayo waana qarinayaa islaantii waxay ii sheegtay xilli ari uu soo barqa fadhiistay idaha baraarkeerka waa laga reebaa in lax ka mid ah idihii baraarkan dhalay ay xidhkan ka ciyaysoon laxdan ay soo gaadh lahayd geedkii islaantii way tagtay waxay aragtay laxdii iyo ninkan oo isku khariban bay aragtay kadib islaantii iyada khatar gashay waxaa la yidhi islaantan waa jaajuusad maxay way kan shirkaas aynu ku xasuusnay ceebta ka dhanka abeelaha deegaanka ee sharafta leh iyo magacbiinta khadhaadh mar uu ka hadlayay sheekhu isagoo ka mid ahaa abaabulayaasha shirkaas waxa uu yidhi waa markii koobaad oon arko shir sidan oo kale u qabsoomaya bannaankan oo kale lagu qabanayo amnigan oo kale lagu qabanayo 68 degmo iyo 9 gobolba laga soo wada qaybgalayo runtii waxaan isleeyahay shirkani wuxuu yimid waqti munaasaba wuxuuna ku dhacayaa meel munaasaba wuxuuna ka hadlayaa ajado munaasaba adiguba caqlaad leedahay ee dhinacuun bal u raac damacyada la shaqaynaya gadgadoonka waayaha ee gudoomiyaha uu keligii ka bilaabmo kuna dhammaaday xisbiga cadaaladda iyo sinaanta ee deegaanka Soomaalidu sheekheena Ibraahim Dheere